warbixinteena maanta waxaan ku eegi doonaa youtuber caan ah oo soo galay diinta islaamka ka oo dhashay wadanka England magaciisa waa Jay Balfour waxa uu soo galay diinta islaamka waxa kaga sii horeeyay laba youtuber kale oo caan ah oo ayagana aan haysan diinta islaamka hase yeeshee ku soo biiray warbixinteena ku soo ashhadu I testify an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu soo dhawaatiin warbixinteena waan ku qaadaa dhigi doona youtuberka caanka ee lagu magacaabo Jay Balfour ka oo soo galay diinta islaamka wuxuu ahaa youtuber soo dhigay barnaamijyooyin badan oo dadku ay jecleystaan waxa uu caan ka ahaa aaladda lagu magacaabo YouTube bartiisa YouTube-ka waxa uu ku soo bandhigi jiray casharro barnaamijyo kala duwan waxa uu isla markaasi kasbaday in dad badan ay daawadaan macaamiil badan ay subscribe u dhahaan oo noqdo dadka caanka ka waxa uu sheegay maruu ka sheekeynay taariikhdiisa ama historygiisa dambe waxaan ku noolaa tuulo ka fog caasimada wadankaasi ee caasimada wadanka England ee lagu magacaabo magaalada London meel ka fog ayaan degneen qoyskeygi waxay u badnaayeen dadyo Kristana ama diinta islaamka aan haysan qaarkoodna bilaadiina hase yeeshee mar walba waxaan dhalada ka eegan jiray oo ka arki jiray islaamka oo aad nacab loogu muujinaya isla markaasna qalqal aad u weyn iyo dhibaato ay geysteen iyo dhibaato muslimiinta ay u geystaan dad walba diin argagax ku dheehanna inay tahay hase yeeshee waan beensaday kadib markii aan booqday wadamo badan oo dunida kamid ah kuwa oo wadamo badan oo ay yihiin kuwa islaama waxa la soo dhaweeyay si sharaf ay ku jirto waxaan ka shakiyay diinta ay haystaan waalidiinteeda iyo asxaabteeda qaar kamid ah maxaa yeelay wax sallay ma lahan marka aan weydiiyo su'aalo qaar ah way ka jawaabi waayeen waxaana nafsadeyda is weydiiyay sidee ruux bilaadan ah oo Allah abuuray adiga kula mid ah sidee Allah kugu noqon karaa oo aad ku caabudi kartaa sanam iyo waxyaalo la mid ah oo aan lahayn naf iyo wax walba oo bilaadanka uu leeyahay waxaan arintaasi ka amakaagay kadibna waxaan baaray diinta islaamka quraankana dhageystay macaanidiisa iyo fasirkiisana isku dayay in dad ii fasira aan raadsado kadibna waxa qulubteyda ku soo degtay naxariis isla markaasna waxaan gareystay in diintan ay tahay mid kaliya ee xaq ah kuna dheehan runta isla markaasna ka fog ceeb iyo been intaba waxaan u tagay culimo badan waxayna ugu waaniyeen in diintan aan soo galo intaas ka hor waxaan raadiyay surgeon ama baaritaan dheer aan galay oo aan research badan raadiyay isla markaasna waxa ay soo baxay in diintan ay tahay mid kaliya xaq ah muddo dheer ayaan goob walba u tagay jiray sidii aan wax ugu ogaan lahaa waxaan jeclaystay hab dhaqanka islaamka sida ay ku soo dhaweynayaan marka aad tagto wadamo islaam ah iskigana faraxsan yihiin ayagoo ku jira xaalado adag isla markaasna iska dhoola cadeynaya wax dhibaatana aan haysan halka nololka gaalada kale ay tahay mid kaliya aniga ah macnaheedana uu yahay wax dad isku darsan ma jiro qof walbana goonidiisa ayuu waxyaalo wax leesanaya arintaasi ayaan la yaabay farxadda ka jeedan halkaasi iyo sida muslimiinta ay ugu qanacsan yihiin nolosha eeba uu siiyay iyo waxyaalaha yaryar ee ku dhaqmayaan aad ayaan u jeclaystay run ahaantii diintan waxaan ogaaday baaritaankaasi dheer iyo culimo badan oo aan la kaashtay ugu dambeyntiina waxaan noqday ruux ku soo biiray diinta islaamka waxa kaga sii horeeyay Jay Balfour dad badan oo ahaa youtubero kuwa oo ayagana diinta islaamka mar uu soo galay waxa kamid ah warbixinada aan soo qaadan doono in lagu magacaabo Pastor Hadwa oo u dhashay wadankaasi Mareykanka isla markaasna haysta dhalasho wadankaasi wuxuuna ka soo jeedaa asalkiisii dambe qaaradda Afrika waxa kale oo kamid ah Daawudkeen in la baxay oo Korean ah ka oo soo galay diinta islaamka asigana kamid aha youtuberada caanka ay wax soo geliya baraha bulshada sida bartooda YouTube-ka caanka ka dadkaasi waxay booqdeen wadamo badan oo islaam ah waxayna arkeen sirjino badan waxayna raadiyeen sidii ay ku heli lahaayeen diinta dhabta ah isla markaasna dhaqanada kala duwan iyo sida caloosha furan ee loo soo dhaweeyay haddaba waxaad ogaataa walaalka muslimka oo in soo dhaweynta iyo dhoola cadeynta dadka kale ee gaalada ah ee aad soo dhaweysanaysa qaarka safarka ah ee aan waxba ka galabsan inay tahay muhiim sababtoo ah waxa ku soo islaamay quluub badan oo gaala ahayd waxayna ogaanayaan dhabta ka jirta muslimiinta iyo sida ay dadka u soo dhaweeyaan oo aad loogu amaanay hore iyo intaba iyo haddaba taane waxay noqon kartaa waxyaalo badan oo suuro geliya in dad badan oo gaala ahaa ay diinteena ku soo hoobtaan ee ay soo galaan ayagoo qori iyo carad aan lagu islaamin wadamo badan oo waxaa jira muslimiinta ugu badan yihiin wadanka Indonesia wadamo kale
kaliya laguma islaamin rasaas ama qori ama dagaal, intaba waxaa lagu islaamiyey diinta dacwada oo la gaarsiiyey. dacwadana waxay qayb weyn ka qaadataa iyo naxariista dadka aad u fasho iyo dabeecadaha wanaagsan inay soo islaamaan. muslinkane Allah ayaa yiri dabeecadiina wanaajiya iyo dhaqankiina quluqiina ha ahaada mid aad u sareeya oo qofka carabkiisa iyo laga nabadgalayadiisa ayaa ah qof islaamka ayaa ah islaamka dhabta. haddaba waxa guul weyn u ah muslimiinta dadyowga halkooda ku xiraa barahooda YouTube-ka ama janalyada ay halkaasi ku leeyihiin ayaa aad amaan kala dullaay raggan dhiirigelin iyo waxyaalo badan commentiyo badan oo dhiirigelin ku soo xardhay barahooda bulshada. haddaba sidee baad ugu qayb qaadan kartaa walaalkan bartiisa YouTube-ka waad gali kartaa janalkiisa si toos ayuu ku geenayaa haddii aad qorto magaca Jay Balfiri ama Daawud Hadwa oo asna ah walaal kale oo soo islaamay ama Daawud Kin oo ah Korean Islaama. intaasi ayaa barnaamijkeena ku saabsan yahay maanta kuna qaada dhigeena walaalkan muslimka ee ku soo biiray farxadiisana aan la qaybsanayna. haddaba waa walaalkeena maanta wixii ka dambeeya ma ahan qof kale sababtoo maadaama ay soo galaan diinta islaamka. dadiyowga diinta islaamka soo galaya aad ugu farxa qaarkood badana aan dhahe waxayna aad ugu farxaan diinta islaamka oo hamida xaqa. waxay sheegaan baadilkii ku sugnaayeen iyo taariikhdii hore iyo waxyaalihii ay soo mareen. waxayna aad u sheegaan in islaamku yahay mid aad u weyn, diin aad u fiican, diin macaan, diin ku dhisan xaqiiqo, diinta kaliya ee xaqa ah ee Allah subhanahu wa ta'ala lagu caabudayo. waxayna farxad ka muujiyeen Allahii soo haleelsiiyay inay soo islaamaan. awood iyo xeelad toona ma ahayn ayay dhaheen, waxa kaliya ku soo islaanay Allah awoodiisa. dadka qaar Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ku soo duwo wadada saxda, qaar Soomaali ah dhalad ah isla markaasna iska maan habaabsan ay ku biiraan diimaha kaleete ayagoona ay u geysay aqli xumadooda, maangaabnimadooda iyo daraagiska isticmaalaan iyo balwada joogtada ah. janalkeena Dooxa Media aad warbixintaasi kala socoteen. barnaamijyo kale ayaan idin soo gudbin doonaa. halkan waa janalka Dooxa Media. mahadsanidin dhamaantiin.